أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقا في وسط قلب في الهموم تمسقا. ومحي jacaylku waa wax jira kuna beerma qalbiga bini'aadamka. jacaylku wuxuu wataa raxmad iyo naxariis u gaar ah waxaana dareemi karaa ruuxuu haleelo ama la noqdo daris. waatuu abwaan sangu horay u yidhi haddii aan jecel jirin nimco laguma joogeen. waxaa run ah inay dad badan isweydiinayaan waa maxay jacayl. jacaylku waa rabitaan weyn oo soo jiidasho kahelitaan iyo xushmadna ay ku dheehan tahay. jacaylku ma ahan mid lagu qeexi kara ama lagu sifayn karo hal qoraal. xaggee laga helaa jacaylka? jacaylka waxaa laga helaa dareemayaasha bini'aadanka iyo dhiigga qofka. sideen ku ogaan karaa in jacaylku i helay iyo in kale? waxaad ku ogaan kartaa waxyaabahan soo socda sida fikir badan oo aad ka fikirto qofka aad dareenka u qaaday, isbeddel ku yimaada noloshaada, gooni u bax, inaad tagto wax badan, jecelaysato la jooga qofka aad jeceshahay iyo waxyaabo kale badan. daawo ma leeyahay jacaylku? haa wuu leeyahay, waxayna tahay qofkii aad muhatay ama jamatay adigoo hela lana wadaaga jacayl dhab ah. haddaba ma doonaysaa in lagu jeclaado? marka hore waxaa laga maarmaan ah inaad diyaar u tahay in lagu jeclaado, waayo haddaadan u diyaarsanayn in lagu jeclaado ma noqon kartid qof dareema macnaha jacaylka ama dareema macaan nolol jacayl ku dhisan. noloshu waa jacayl. noloshu waxay ka unkantaa meel jacayl ka jiro, meel nacayb ka jirna nolol kama jirto. jacayl la'aan waa nolol la'aan.